isbitaalka guud ee koonfurta Gaalkacyo waxaa lagu hayaa Ruweydo Raage Daahir oo ah gabar yar oo 7 sano jir ah isla markaana uu haleelay jirkeeda xanuun aad u daran oo bedelay muuqaalka jirkeeda xanuunkaasi oo ay dhaqaatiirtu ugu yeereen meningitis oo ku dhacay yaraanteedii sida ay noo sheegeen waalidiinteedu Ruweydo oo laga keenay miyiga deegaanka Ceeldibir ee gobolka Mudug waxa isbitaalka Gaalkacyo oo aan waxba looga qaban karin xaaladeeda kula jira Canab Xasan iyo Raage Daahir oo ah hooyada iyo aabaha dhalay gabadhan waxaana waalidiinta dhalay gabadhani ay noo sheegeen in aanay heli karin awood dhaqaale oo ay kula tacaalaan xaaladda daran ee gabadhooda isla markaana ay ku geeyaan goob caafimaad oo tayo leh mar aan ku booqanay isbitaalka guud ee koonfurta Gaalkacyo waxaa nala hadlay Raage Daahir oo ah aabaha dhalay gabadhan wuxuuna ummadda Soomaaliyeed ka codsaday in maanta ay garab istaagaan kuna taageeraan sidii uu u heli lahaa dhaqaale sahli kara in gabadhiisa la geeyo goob caafimaad oo xaaladdeeda wax ka qaban karta jiraan 7 bilood waxa faaskan waxa sharaf kale in tooriya taaqada u weynaa waxa la waxay nooca u karana siya ay noo awoodan waxna qosdan yara toorba weynaa waxaan ka codsanaya toorkada u jeedin waa plan way 7 bilood jira toorba loo waayay waxaan ka codsanaa sharaf kale waxay jiraan nooca weeyaan